waxaa lagu tarjumay astaan films kusoo dhawaada maalmaheeni dambe baarista maalmahan waxaan ku guda jirnaa inaan baarno dil ka dhacay magaalada aniga waxaa la yidhahaa Nafifa Jaan maanta waxaan diiradda saaraynaa faldambiyeedkaas oo ku saabsan dad magaalada intay soo galeen dadka masaakiinta ah dilaayo waliba ayagoo nool mararka qaar gubaayo taasna wax loo dul qaadan kara maaha dadkaas xunxunka waxaa loo baahan yahay dalkeena iyo dadkeenaba in aan ka ilaashano maxaa yeelay anaga nolosheena ay saameyn ku yihiin dhanka kale booliska arintaasi maxay ka dhaheen saraakiisha ugu soo sareysay ee booliska amniga waxaa loo baahan yahay in ay dadkaasi ka hortagaan dadka masaakiinta ee la leenayo dhiigooda la cabayo ayaga wax uguma jiro miya mise ma danayaan dhiigga masaakiinta la daadinayo dhanka kale maanta waxaa idiin sheegaya waxaa jira hal sarkaal oo booliska ka tirsan oo arintaasi u kuurgalay oo aqligiisa iyo maskaxdiisa kaashaday askarigaas ayaan rabaa maanta qisadiisa inaa idinkaga sheekeeyo bal nala daawada indhihiina ku arkaa مسوريا aniga waxaan u baahanahay waxay oo laha jiray ma jecel cid inay weerarto maxay la sida boqorka loo dilay ma taqaanid boqorada adiga gaarka ku aan ka hadalno adiga meeshan maxay ugu wacdanay arin ayaa jirto maxay tarinta jirto aniga waxaan u baahanahay qof in la dilo iyo way qofkaas يا ويني ارصفيري waxaan ka codsanayaa qofka u yahayna ii sheegtid
soo istaag guryaha ii sheeg yaana soo weeraray ii sheeg guryaha afartii saaxiibada afartee waane yaa kaa luusa taliye taliye waa ku baryaa ha idilin xaqiiqada wax jira dhan anaa kuu sheegaa aday ha idilin ಹರಿಸುವೆ ಹೀಗೆ ಕಡು ಮೋಹಿಯ ಮಾತನ್ನು ನೀ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಕಾರಣ ಜೊತೆಗೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೊಂದು ಸಹಿಯ ನೀಡಿದ ಒಂದು ನೀ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ಕೋರಿಕೆ ನೀನಾಗಾಗ ಕೇಳೆ ಕೋಮಲೆ
ಕೀಟ ಕೀಟವೇ ತಾರೆ ನಿನ್ನದೇ ಗುಂಗಲಿ ಚಂದ್ರನೇ ನಿನ್ನಯ ತೋಳಲಿ ಚಿತ್ರೀಕೃತ ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂಗುಳ ಗಾಳಿಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವ ಕೌತುಕ ಮನದ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಆಗಿ ಬಾ ಬನದ ಶ್ವೇತ ಸುಮದಲು ನಿನ್ನ ಅಂದವೇ ವೈಭವ intee u socotaa xafiiska sangabuur ayaanu socdaa waxaan rabay inaan kuu sheego lixda inaan soo laabanayo fiiri xafladda ayaan isku raacaynaa waan ku baryaha iloobayaa anigii adigaa baxayne dhib mala waa wadaadayna ಹೂನಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದೆ ಮರುಳಾಗಿ ಹೋದೆ ಅರಿಯೇ albaabka yaa furayna markaan sii baxaya ayaan bixiray anige laakiin yaa fure
taliye wadada hoodka shil ayaa ka dhacay gabar ayaan meesha ku geeriyootay waaya anaa soo socdo waryaa kumaar adiga aroosaada aade maxaad u soo laabatay maxaan sameeyahay taliye waa ku qasbana haddiiba qof geeriyooda inaan dib u soo laabto laakiin sidee wax u dhaceen taliye kiiskan waxaad moodaa sida kiis shil gaari galay oo kale laakiinse gaariga shilka waxaa ku kalifay gabadha ukuma ayaa lagu tuuraa xili waxaana ahayd roob da'aayay wiilal dhallinyara ayaa bursanaya way daba joogeen gaarigii gabadhii way xakamayn weysay gaarigii siduu u cararayay wuxuu ka dhacay meel geeda ah oo haadaan ah gaarigiina kadib waa uu guftay sidaas ayaan wax u dhaceen taliye waxaan ka xunnahay markaan imaanaynaba gabadha horteena ayay geeriyootay tooskii dhiib gabadha wejigeed ma la aqoonsan karaa maya taliye ilaa hadda wejigeeda waan aqoonsan laanahay dhaqaatiirta waxbaarta iigu yeera meeshana yimaadaan kumaraye ma ogaata baabuurka taliye taargadan way gubatay haddii isku dayda xataa dib inaad usii fiiriso lambara ayaa kasii maqan lambaradan waa khafiimo dhammaystirna taliye lambarkan waxaan u diray xafiiska taraafikada siriya lambarka si aan ugu tixraano wax walbana goordhow meeshan ayaan ka helaynaa waxaa kaa rabaa hadda taargadan lambarada ay ka dhiman yihiin taraafikada u dir ii soo ogow qofka iska tan kale ukunta dadka ku tuuriyeynaya in la soo ogaado subax wanaagsan taliye taliye waan ku salaamay waxaan kuu wadaa riboodkii gabadhii dhimatay dhakhaatiirta wax ay ka soo gudbiyeen waayahay anaa fiirinaya waaya taliye aawi matubaa kaalay waxaad ii keentaa wax walba oo farmasoona jikacadin taliye waa kana kiiskan waxaa ku saabsan yahay gabar miya maswiil gabar waay fismaayaana la dhahaa haga maalinay maqantaa shalay ilaa waqtigan la joogo kiiskan yaa keena saldhigga koo saaxiibkeedii magaceeda ku soo celi fismaayaa la fismaayaa dadka dacwadan iska lahaa ma joogaan ii sheeg xalay
imaadeen ilaa hadda waa jooga meeshaasay fadhiyaan waqti xadirkan waa joogaa soo maaha iiguwa marxaba iskuusato talyaani wucooy soo socdee soo shabaali yaaqay soo socdano fiiri tartiib u soo geli idinka ha ismartiyeenina talii dadka soo dacwadu waa kuwa hoona feerta soo fariisa adinka talii wadada waa kuul qodamo magacyadiinii sheegay aniga saamaa leedhaha gabadhani maryanaa lahaa gabadha maqan magaceeyaa lahaa taliye meeqa sana jirta taliye 22 jir ayay ahayd maxaa sutiin taliye qoftan waa saaxiibteed isku gurina way degnaayeen xaas laqaamay ahayd maya taliye ayada xaas ma ahayn waqti intee leegaa la laayahay taliye shalay ilaa iyo haddo wax cadaawada qofku kala dhexey ma taqaanin ama jacayl midkiis maya taliye waxaas ma jiraan markii aragtideeda in kugu dambayda goormay ahayd taliye shalay doortii cafeteria ayaa isla joognay iyada way naga tagtay waxaan isdhehaynay way imaanaysaa annagana howlo kale ayaa lahayn kadibna waan sugnay iyadana way imaaweysay marka annaga nafsadeena sidaan uu qancinaynay way imaaweysay sida darteed annaga waan soo dacweynay waa intaasoo keliya fiiri gaarigan saaxiibtiin ma iska lahayd maya taliye sidee wax u jiraanne ilaa hadda aniga waan fahmi lahay horta gabadhan haddaan kaga warramo gabadhaani ma noole maxaa yeelay gaarigan anada idin tusaayay wadatay dad ayaa waxay ku weerareen asoo roob xudaahay oo kuman gabadha baabuurku way xakamayn weysay kadib geeday ku dhifatay meel buuray ka dhacday baabuurkii markuu la qallimana salbatooyadii ayaa waxaa ka kacay dabkii markuu ka kacanay gabadhi meesha ayay ku gubatay laakiin hadda annaga baaritaan ayaan ku jirnaa baaritaankaasna wixii ka soo baxa waa idinla socodsii doonaa kumaar kumaar dadkan kacay filinjeerka geey meydka hadday aqoonsan karaan bal tus tan kale waxaad samaynaya warqadda bixitaanka iyo tii oobigaba iga soo qaad socda soo hadal waa tii tale oo kala soo hadlaa qaybta bataanka adiga waxaad ii soo dirtay kiiska fismaayaha in la fiiriyo waxyaalihii baar aad idhahday maahine wax kale ayaa iga soo baxay wax dhiiggeeda qusayna mahal maba ku jiraan baniyo geedka markii aan fiiriyey geed gasaca iga soo baxay gasacii markaan sii baarana waxaa iga soo baxay geed cinjir ah baaritaanka markii aan fiiriyeyna dhiiggeeda wax ku saabsan maba ahabo waa d n a kale waxaa cinjirka u maleynaya wuxuu noqday mataqaanaa qofka waxaan geystay dharkiisa qayb ka mid ah dharkaas aan helana waxaan ka sii helay mataqaanaa maandooriyahaasna waxaa lagu magacaabaa sakabooli ayaa lagu maxay tiri sakubaalmi ah maandooriyaas maba la helabe waa runtaniyo indii xataa laguma isticmaalo meelahaas ayaa laga keenay suntiisana run ahaantii caadi maaha geedkan aad u jeedana waa qaaliniyaho oo hadda ma waxaad iga dhaadhici rabtaa fismaaliya qof kale ayaa gaariga la saaraa taas maa kaa dhaadhacsa aniga waxay ila tahay nin lacag leh oo waxaan ka ganacsada gaariga in uu saaraa biswanaad waa mahadsantaa mar kale haddaan ku baada anaa ku soo wici doona waayahay yaaqe waqtigaa doonto way soo wici kartaa taliye feelashii oo dhan waa kanaa wax walbana meeshan ayay ku qoran yihiin shilkii gaariga ku dhacay fishaal haddana asaga uu xiran yahay dabagal fiican markaan ku sameynan waxaan ogaanay maandooriye inuu ka ganacsado haddana adreeskiisa ayaan baaritaan ku haynaa waxaan ogaanay karankabuur inuu degan yahay asaga waxay ila tahay aniga nin ganacsadaha ami kale nin ganacsado maandooriyaha inuu yahay nakeena way taliye
maandooriyaha iyo cabitaanka ayuu si xad dhaaf u cabataleeyay sida meydkii oo kalena meeshan u yaalaa stupidka istaag guryaa warkaac dulliyow alkuliistaa istaag guryaa dable kaalinka qaad هي فيري جوكسو هوي لا جوكسو سو فريسي ليمي مالخوا جوكسو وريا ككع ورفرين دهاو نيما خشميا مسكحة دي بسو علي كان وحاو مالينا كي قبل كفصدين واساقيا كمار هاتلي صورة غاب بارتسي وهي تلي ورياضي صور كان فيري متغن هذا الوريا سفنا فيه صورك فيسمايا وكرو هذا البصري فيسمايا كمار نيكا سلقي جي إلا وكسو كعنا ماشي سكواي ماندورياشان شيبار كان لقي وربحنا الله كان اوكي تلي رحمة جوكسو وريستاك ويا ما حاولت تبالغ جوكسو taliye dhiigga aan ka qaadnay fishaal ee tiishka dhiigga lahaay uga islahaaday teeda kale taliye fishaal gabadha 3 mar ayuu soo bacay 3daas marna waxay ahayd 3 December macluumaadka aan soo aruurin dhan feelkan ayuu ku qoran yihiin taliye وريا ور استاغان كدهاي نعل ku yaaliyo 4 saac waxa u jiiftaa sida dameer oo kale استاغ waa ka bas igda استاغ bas waa ka dadka igda ورا فيري سوجس سيفي عن هذا adiga fismaaya maxaan ka dhahay fismaaya qof fismaaya Allah aanay makasaay isakii day waa baxaan aniga leesh ciyaarta kadaya maxaa dheele waxaan ku sheegay aniga makasaayani فيري وشي ديب كان انا لغته يغنى كلها ما يتلي قسم ما هنا يقرا ساكن انت ما ندوريس كبوحس انا رتا كوشيغا waxaan aqaan ma iska daawo تلي حنون هذا وريا باسريو تلي انا رتا كوشيغا waxa ogahay malahan ما هادله مسكيد عمل كولينا هذا تلي رتا كوشيغا تلي يعني في اسماعيل كوشيغا تلي كوشيغا دي الكلمات كو قاطيشك امسال قندراسه ميو كفت ميسين هذيك انا يا كفتن قال لي اسمعها يا كلك رتا كوشيغا تلي يعني انا ما كفتن هذا الكلمه كوشيغا تلي حنون شاك وريا تلي رتا كوشيغا تلي شاك اديك قال لك ميو كفت ميسين aniga dilkan waxana ka leesiya ma qaani qoftaas aniga waa idhar baxday aniga waa ka argusid waan darbaxay dilkan waxaan kala sheegaysi moogaan taliye waligeena kuma fikirin dil iyo waxaas inaan geystani taliye waxba u jeedo dhaxda aniga diga soo giliseen warkaas ka yeeli maayo haddaad runta ii sheegto waa ku fasaxaa vismaya markii ugu horeysay aniga idaan wada kulmeene baarkan isku aragno taliye
Gaza, what's up, bro? Ewer. هو إيمان. متقارن aniga. meeshan hadda koor kugu arkay moogid. Aniga xataa waqti qurux badan aan soo wada qaadan. Kaalmilo saxa ku dhacay. qoftan walaashaan miyaa? What do you say, man? walaashaan miyaa qabana? waa kaftamahay bro, naga dhaafeeno. waa ali qurux badan laakiin ya. هو ولا يا أخي اسمنا خلوا. waa ku faraxsanahay barashadaada aad iyo aad niyow. nin la bartay istaa. Oh yes. No. What the fuck are you doing, man? Don't worry. I'm sorry, bro. Yes. You damn shit, man. Wow. walaalka inta ku soo laabanaya masiibada hadda kana labadeena adiga dib badanidaan walaalo waa ku bari dhibkayga dhaaf waxa la gabdhamkii qurux badan maarto loo tagaa waa loo sheekiya waqtiga la qaataa adina waqtiga wada yaa qafiiri adiga iyo aniga isma fahmeyno adiga cabitaanaad iska soo bas waxa faraha inaad la soo gasho horta aniga qofkaan ahay ma taqaan ka dheh nin qatar aan ahay waxaan rabaa aniga adiga inaan isfahanno war walaalo waa ku bari iga aamus ayaan ku dhahay saas miya waayahay iska ilow laakiin day muusiga dheeraay war ma ay tirin igu soo celbi kuma maqal aniga maxay tirin day igu soo celban adoo raale waa ku bari hadalkaaga iga xir alaas lama idhiis ya hadday waxay noqotay dhaado ku jeclay ka waran hee jecel ma tidaahdayna adiga nin waalanaad u eg tahay oo waalan tahay aniga waalan muuta gabar waalan oo sidaadoo kale taana jecel aniga war adiga maxaad sameynaysaana waxaaga waa xad dhaaf wixii xad dhaaf ma inaan isbarano ayaan rabaa waxaan jeclaan lahay magacaaga dhishid magacayga Fismaya Surish ayaa la dhahaa Fismaya ma idhaahde waa magac qatar ee magacaagana romantic ayuu xambaarsan yahay Fismaya maya wax romantic ma xambaarsana romantic uu ka qatarsan yahay mucjizo ayuu wataa magaca kaali iska arwa Fismaya magacaaga aad iyo aad waan ka helani noocaadoo kale ku waalanahay aniga waaye adiga magacaaga ii sheeg bal horta aniga noloshayda way isa kooban tahay magacyo fara badan waan la soo baxay laakiin magacaygu waxa la Fishal moogtahayna cabitaanka markaan kugu daadinayay kas ayuu ahaa shil ma ahayn waxaan rabaa adiga oo kaliya in aan ku barto dhimalaha waxaas caadi waaye aniga xataa maarta haddaan xabadka kaaga daadiyo in ay iga xumaato maa sababtoo ah barashaday qayb ka tahayno teeda kale labadeen haddaan iskaabulnimada aan ka baxno sidee u aragtaa in la iskaabulnimada cudur waaye jees migu raacsatayna fiiri adiga waxaa ka dareemayaa isbeed ayaad ku socotaa fani ayaa tahay fani qof shactirista man kula ka ismaaciil fiirbe war shactirista adiga waa dhaaftay aan ku dhaa joker ayaa tahay ama joker sidee ahaataba hadda waqti waa aniga waan sii baxayaa u kaadi badada ka xumaanayna daaniga ku sii dhaway ka war gaari WBM aan wataano may mahadsanid baryaano kaliya iska baxaayo maalintaas kadib anigu gaari wato ayaan si lama filaan ku arkay iyada waliba wasajada baabuurta ayay taagneed way Fismaya maxaa sameynaysaa halkan Fishal miya seetahay Fishal adiga waa fiican anta maxaa sameynaa adiga aniga gaarigayga iga halaabo ma ogtahay taxi aan halkan ku sugay marka waxaan rabay in aan baxo waqti dambeeto haddana gabar qurux badan aad tahay haddaan ku sii dhaweeyay sidee u aragtaana mahadsanid aniga kaliya baxaayo mar waa ku baryaha iga diidino gaarigaygu wuu abaarsada ayaamahan dambe wax gabar qurux badan ay soo raacdana ma lahan marka aan ku sii dhaweey soo fulno adiga faniya tahay khatar soo fule markaas kadib gaarigida ayaa ka ciladoobay anigana gaarigayga ayaan kusoo qaada taliye sheekadaan isu keen baxda labadeena weliba si fiican ayaan isku sii baran taliye adiga mar walba sidaan iiga qoslasii wiil khatar ayaa tahay qoslada u baahan tahay soo kol gareyle anaa hore kaaga imaanaya okay Fishal waxaan kaa ilaaway kaarkayga inaan ku siiyo isoo kol gareeya waqtigan isla qaadana aadaan ugu faraxsanahay hay habeen wanaagsan yaa bye maalintaas wixii ka dambeeyey aniga ayadoona soo dhawaanayna taliye xiriir fara badan ayaan dhex maray maalinta ka dambaysa aniga waxaan dareemayay nolosheedina isbedelays taliye baarka ayaan ku kulmi jirnay waana isku soo dhawaanay farxad fara badan ayaan qaadanay labadeena teeda kale xitaa taliye labadeena waxaan u dabaaldegnay ayada dhalashadaas ayaa waxay noo suurtagelisay in ayada xiriirkeena inuu kii hor ka wanaagsanaado run ahaantii sanad guurideeda markaan u dabaaldegno kadib labadeena zaa'id ayaan iskugu soo dhawaanay wax iska caadi ah waa taliye inaan guryaha isku soo booqano cabitaan isla cabno waqtina aan isla qaadano Fishal
guryaha dadka kale markaan tagno sawiro ayaan ku aragnaa laakiinse meeshan markaan imaano sawiro nooc kale ayaan ku arkaa haa dadkaas noloshooda iyo nolosheena way kala duwan tahay sawiradan ujeed waa sawiro iska caadi ah laakiin dadka kale sawiradooda sawiro aan jirin ayay la mid yihiin adiga fani ayaa tahay shactirolo waa tahay fishaal aniga mugdiga waan ka cabsanayaa waa ku baryaa shumac nooshid feerihii qoftaan mugdigi maa ka cabsanaysaan adiga mugdigi inaad ka cabsatid ma ahan sababtoo ah nolosheeda maaragtay mugdi ayayba ku dhisan tahayba mugdigii qaarna farxad ayaaba laga helaaba anigana baashaal ayaanbu arkaa sababtoo ah mugdiga nolosheeda cabsiyo dhanba ma laha nadiif waaye haddii ay sidaas tahay noloshaan farxadda leh maad igu soo biirisid anigana aan ka qayb qaatee nolosheeda farxadda leh miyaad rabtaa inaan kugu soo biiriyeyna adiga ii sheeg bal haddaad u baahan tahay waad ii soo dhawaan kartaa waa lagaa hubaa ciyaaraha ayaan isla tegi jirnay garoomada ayaan wada aadi jirnay labadeen waan isku faraxsanan taliya nolosheedu dhan gabadhaas waan ku faraxsanaa farxadda badneed kadib taliya dhibaato ayaa ii bilaabata aniga fishaal ku maqlaya hadalkan aniga ku dhahay ma ka fikirtayna go-aan adiga ma ka qaadatee go-aan ma ka qaadata ah aniga waxaan rabaa labadan inaan isguursano waa ku baryaa fismaaya jooji aroosi waxaas hadda aniga ma geli kari aniga isku mashquulsan waa ku baryaa aroosi waxaas waa nacba iga daa aroos ma geli kari maad idhaahde sidee u hadlaysaan adiga markaan isla raaxaysanayna labadeena waa ku baryaa jooji garkaadaan haystaa jooji aniga hadda mashquulsan ha igu sii darin biliis iga jooji fishaal aniga sideen kaaga joojiyaa maxaa yeelay aniga 5 bilood oo ur ayaan leeyahay fishaal dhib badanaa mudan igaraal noqo xaalad emergency waay uma jeedid miyana mudan kaal adiga indhaha meel la lahayna mudan igaraal noqo shil meena gelinaysa hortaada ma iska fiirisid may mudan ula ka jidkaas soo istaagana dan bileed ka waran mudan oo ku bariya uriya adiga inta la inaad dadade waxaan rabaa dabaqa dahabiga inay geyso ornaha iska soo qaad way soo full bal waa maasantaa mudan hay mudan waa ku maasantaa maadaama ay soo qaadeen fishaal waa ku baryaa fishaal fishaal ila hadal waa ku baryaa ay dhegaysanin fishaal sidaan ha igu samaynin ila hadal fishaal maxaad ii yeesaysaana fishaal waa ku baryaa hal mar oo keliya ila hadal fishaal sidaan ha ii gelin ila hadal fishaal waa ku baryayaa fishaal ma ila hadashid sidaan ha igu samaynin waa ku baryaa fishaal sidaan oo dhan maxaad iigu dhegaysanaysaan maad ila hadashid fishaal sidaan danoo maahan labadeena waxaa fiican inaan isguursano waa ku baryayaan isguursano nolol maaha sidaan maxaad ka wadaa adiga ila hadal hayesin aniga si fiican ila hadal yaqa sidaan nolol maahan fishaal aniga uur 5 bilood ayaan kuu leeyahay nacla uurkaada ku yaal marka hore maxaa ugu fikiri weysana adiga maxaa ugu taxadir weysa marka hore sideen ugu fikiraana ani ma leedahay maxaad ugu fikiri weysa aniga uur ayaan leeyahay uudkaygana ma soo ridi kara fishaal ila hadal mar hore ayaan ku dhahay bilooniga iska difaac laakiin maxaa u furtay shabaqa maxaa u difaacan weysa hadal markaan leeyahay uur aan leeyahay naga tag idhigeysa fishaal ani ma leedahay isdifaac sideen isku difaacaana uur naga tag fishaal wixii hore iska ilow mas-uuliyadda cunuga xataa aniga ayaa dusha saaranayo maxaa tir mas-uuliyadda inaad dusha saaranayo ah taada hadhow aan dusha maga soo fuulayso
cunugayga maxaa daliil u haysaa ii sheeg maxaa caddaynaysaa war aniga murug iyo dhibaato diyaar u meehi nolosheeda inaan ku raaxaystaan rooriga tagbax maxaad idhahdayna waxaan ku siinaa lacag kadib cunugan iska soo xaaq iska dhambax meeshaan iskaga tag kaalay doqoyo nacaska oo baaca iska soo xaaq doqonaa tahay baaca tahay aniga taliya isma dheheenin dhibaatada ugu badan waxay kaa soo gaaraysaa markaad furaha gaariga ku ilowdid meeshaas ayaan dhabkayga bilowda aniga waan soo qaaday ayada gaariga gadaashiis dambe ayaan geliyey laakiin nasiib xumo furaha wuxuu ka taagnaa gaariga qaybtiis dambeed anigana waxaan u maleynayaa inay soo baraarugtay gaariga furiisna ay qaatay kadibna meesha iskaga tagto taliya anigana isma dheheenin furahaas ay caddeyn kugu noqonaya taliya sidaas ayaa u dhaceen taliya markaas waxay ka dambeeyey aniga ildan ma aan saarin waxaan dhexmar labadeenna halaas oo keliya ayay ahaayeen kumar kiiskan dilka ayaa qeer filin camal ugu dheeraada kowdhe meel igu qor asxaabtiisana dacwaday keeneen meel ku qor ayadana waaya taliye najis ayeelin asho diyaar ma tahayna yaab waay maamooyinka iigaaba waqti badan qaadan jira gurigaan ninkaaba daahooya ka waran yaqay soo dhaqsa hadda diyaar ma tahayna aawa ifteeshinkiina kaa dhigtay yaab badanaa waxaan meel wax dhiga xataa ma la fahmaya ka waran ashoog sawirka gabadhan maxaad u haysataana fismaayaa la dhahaa adi ma taqaan bukaankayga ayay ahayd hadda arooskeedan ba aad rabnaaye maxaa dhacday fismaaya arooskeedan baad u soconaa naagtaani way dhimatay maxay dhahday ayadii gacaliyeeda fisaal ayaa isku dhac markay isku dhaceen gaariyay wadatay ayadoo xanaaqsan roobna uu da-ay ukuna si xun loogu tuuriyey kadib silay gashay gaarigii ayaa la qallimay oo la gubtay saaxiibkeed fishaalna waa soo xirnay magaciis maxaa dhahday fishaalaa la dhahaa laakiin gacaliyada soomaal ayaa la dhahay ma jiraan waa faataadhu baaritaanaan hadda ku hayaa war aniga waan huba gacaliyaheeda in la dhaho soomaan ma fahantayna anaa kaa hube maxaa kugu dhacday walaalo waa ku baryaa hal mar albaabka ii bani aniga waxaan rabaa dhakhtarada inaan la kulmo maya marwo waa ku baryaa waxaan shaqan ku waynaa shaqada inaan waayan ma rabo
adiga xaasid maxaa kaa dhigay waa ku barya aniga wax kale ma wata dhakhtarada leer waa nala waryaa iska sii daanaa waa ku salaamay waan kaa qaaday aniga waxaa rabaa canugeygana ii daaweysid canugeyga ii badbaadi waa ku barya adiga ahaydna aniga mawku ka sooyee shaardaa lay dhahaa suuma hooyadiisaan ahay wiilkayga waa taqaanaa maho islaanta isbitaalka ugu imaanaysay ii sheeg maxaa jirana waa ku baryaa gabadhayda wiilkayga shilow galay maalmo dhaweed madaxa xoogaa jug ka soo gaartay waxaa kaaga dara aniga dhaqaatiirta ay sii niijibay waxay dhaheen dalka waxba loogama qaban karo xitaa waxay dhaheen mataqaanaa wiilkaaga dibadda u wada ani dibad maan lacag u hayaa marka waa ku baryaa wiilkayga badbaade isdeji adiga horta isdeji wax walba aniga kuu sameynaayo nakaxee gaariga ken haysan feelkaan arkee hay Teresa meeshaan maxaa ka qabanee say u jiraan wiil xanuunsan oo inta jooga ayaan rabaa waayo magaciis Sooma ayaan lahaa Soomaan anaga daaweynoonabe hadda xaaladiisa ka waran bal waxa waaye isugu yaa wax kaalgiisna bixi madaxa jug ka soo gaartay dhiigbax gudahana wuu jiraa xaaladiisa qaliin miyay u baahan tahay haddii isbedeli waa qaliin laazim waa la qabanayaa si fiican u daryeelayaa waayahay waa mahadsantaa hooya gabadheed aniga waan baaray wax soo gaaraya malaha welwelin dhakhtaradana waan la hadlay laba beri gudood okay kuu noqonayaa haye waay gabadheedii waad mahadsan tahay aniga abaalkaada waxaan ku guda ma aqaani runtii hadeertaan inaan baxo waay haddii aad wax baata ii soo sheegyahe ha iga qaran waan baxay haye waa mahadsantihiin ya ashoog eedaysanaha muxuu leeyahayna fishaal annaga markaan weydiinay wuxuu yidhi xafladaan ku wada kulannay kadib guuraan ku heshiinay haddana guurkii waa isku khilaafnay laakiin ani midaan la yaabanahay soomaan ayay guursa rabtay fishaal maxaa u keenay ayadoo weliba uur leh sabab ay saaxiib kale ay u samaysata taasaan fahmi laha maxay dhahdeen uur ah haa yaqi markii la daaweynayo kelida loo bedelayo dhowr bilood ayaa ka soo wareegatay wax uurana markaas ma aysan lahayn sidaad u dhaqmaysaane midaas macquul maaha hal sano gudaheedna iyada uur maba ku qaadi kartaba awfeelka campbell fiira ashoog meeshaan maxaa ku qoran arag bal wax uur iyada ma aysan lahayn sanad ka hor fadhiisa mudane taliye sumaan ma taqaanaa aday ma la socotay sooman iyo fismaayaa inay maanta isgursan rabeen waxaasaa sheegaysa li waxba kama ogaanaya adiga waxaan ku weydiinaa inaynan uur lahayn ma ogeed adiga maxaa dhahdana fismaayaa uur ma lahayn miyaana tali ii sheeg bal xaaraami baa tahay waryaa anaad been iyo qudra inaad ugu cabtaa rabta soo maa istajibal adiga fiir qoftan ayaa waayna ma taqaanaa maruu ma aqaan aniga sheekaad ilatiin ma taqaanid tali midan fismaayaa miyaana maya ayada ma ahan ukaadiya daqadan ku fikrataa isiina waa sheegayay ashoog istajiyaaqay waayahay gabadhan ayay tahayna qoftan fismaayaa ma ahan marwe aniga حتى فيسبوك أكوني وفيرين كتا سورة ميل والباباركتا قفتان في سمايا معن من أقان أنيجي
waatan ha bismaayaadii aan la sawirna aniga taliya si fiican fiiri marwa adigana bismaayaad sureesh qoftaan waaye war dhaadhaankan iga kacay fismaaya iyo fismaaya sureesh laba gabdhood oo kala duwan waa xataa meel ay isaga eg yihiin haba yaraatee ma jirto waa kala duwan yihiin waayo haddii uusan asaga aqoonu lahayn macquul miya inay iyada gaarigiisa waday midaas ma suurtageli karto wax kalaa jiro waxaa la yaaba fishaal gurigiisa hortiisa ayaa gaarigiisu yidhi fismaayaana isla gaarigaasay gurigiisa ku timiday ciwaankiisa wax ma ka edaa isbitaalkan ka raadin karnaa haddaba isla gaariga hadday fishmaaya ay wadato sow lagama yaabo inay baabuurta kala bedesheen fishmaaya suurad iyo fishmaayadan oo sidaa darteed gaarigii fishaal isla fishaal gurigiisa ay u timiday meeshaan waxbaa qasan waxaan la yaabanahay asiga gaariga gadaal ayuu soo riday gabadha waayahay gadaal ha uga soo rida ma xumee ma gadaal ayuu furihii ku ilaabay kadib furihii la soo baxday ay sidaas gaariga ay ku wadatay waad saxantaha adiga inay aragti waa laga yaabaa laakiinse meedka fismaaya annaga waan aragnay gaariga shilka gala aawe tali waxaan joogaa gaarigii goobtuu shilka ku galay meeshana roob fara badan ayaa ka da'aayo waaya qaybtiisa gadaal ma fiirin tali waan isku dayaynaa annaga laakiin waan soo qaadi laanahay maxaa yeele gaarigi meel geeda ayuu ku dhex jiraa dhulkaa iga dhifana in wax yar ay dhacaan ma rabo si taxadar leh dhulkuu dhiga tartiib xaggiisaar xagga gaarigii si toosuu dhiga tali wax yar u kaadi soo jiid dhaqso haa dhig jabi dhaqso war naga fududeeya war dhinaca garaacis waa qalad meeshaan ka garaac taliya caadaas waa adag yahay taliya meedka uu qormay sideen ku aqoonsanay halo wada tooreesan buuta soo hadal suma soo naxmo imaanaysaane waraa kaalay soo fiiri meydka haddaa aqoonsanay soo fiiri aniga ma gabdhahan inay kala wejiga fiiriba ayada fiiri ani maxay soo fiirinay ayada waay bismaayaa sureesh qoftaan waa taliya waaye war naga wadna ashaaq ashaaq
samaan uu soo baraarugay inkeenaan baxnay kumaar gaarigan allay qaado waya taliya gaarigan waa fahmi lahay baan inta qofood uu ku dhimatay marba meydka fishmaaya suuraj haddii aan helnay fishaal wuxuu noo sheegay waa roon fishmaaya laakiin gaariga maxay u wadaan iyada amruuta fishmaaya iyo sooman arrimahooda sideed ku ogaad satiish ma baarteena bukaanka idinka dhiigeed baaritaana ku sameynayso korteed maarkinoho way ka csan tahay alaas leewa marwa adigana waa baari kartaa waayahay dhiiggeeda intuu baaritaanka ka imaanayo sii ogaaday idinkayaa markii aan baaray caafimaadkeeda guud waxaan ogaaday in ay qabto cudurka sokorta weliba sokorta midda ugu xun xataa musliinkeeda bannaanka in uusan u soo saari karin kadib waxaan ogaanay annaga baaritaanka markii aan sii gudagalnay sokorta iyada in ay keliyaheeda baabi'isay labadeeda keliyoodba way ku weysay fiismaaya waxaan ogaanay annaga dhibaatadaasayta in ay ku jirta laakiin waxay u baahanaysaa in ay qof ka hesho hal keli oo iyada loo geliyo haddii aysan ka helin iyada si kale kuma caafimaadi karto sumaan nolosheeda mugdiga aheyd ayuu iftiin ku soo celiyey marwo soomaan soo gudub dhiiggiina markii aan baaray labadiina dhiigagiina way isleeyihiin kelina waad ugu deeqi kartaa wax dhiigoo idinka dhexeeya mayaa jirana ama wax kale oo isku kii soo dhaweynayo maya marwo waan isnaqaanaa balse aqoon saas iskuma lehini waayo annaga xoogaa oo kaliya isla socna moogtahay in badan isma kasayno adiga fismaaya nolosheeda inaad badbaadisaa diyaaru tahay soo maahana haa marwo aniga diyaar ayaan u ahay ayad inaan garab siiyo waayo hadda kor hooyadii axsaan u samaysay aniga inaan axsaan u sameeyo maxaan ku diidayana abaalkeeda ayaan u gudayaaba diyaar ayaan u ahay aniga inaan garab taagnaada waa arrin fiican laakiin mustaqbalkaaga waa inaad ka fikirtaa adiga marwo mustaqbalka wax weyn maahan aniga diyaar ayaan u ahay waayo ayada hadda kor hooyada ay axsaan u samaysay maanta waxaa la taagan yahay xilliga aniga ii baahneed axsaan u samay diyaar ayaan u ahay hadda operation ka bilaabo ditoores xaaladiisa ka waran bal marwo bukaanka ma hadli karo maxaa yeele waa jugta madaxa ka soo gaartay hadalkiina waa maqla laakiin wax jawaab ma ka bixin karo midaasna waxaa sababtay jugta madaxa ka soo gaartay wax kale ma jiraan suman aniga waxaana ditoores amriita may xasuusataane marwo kulama hadli karo laakiin wuxuu qori karaa u maleynayaa soo maahan macquul qalni dibadaay soman fishmaayaa sideed isku barateen shilkaanna sidee u dhacay
maalin maalmaha ka mid a hooyadayaan saare u soo galay run ahaantii guriga markaan imaadayna hooyadii guriga maysan joogin way ka maqnayd ayada waan waayay anigana intaan hooyaday raadinayay mid deriska ayaa igu soo cararay oo ii yimid kadibna wuxuu yidhi hooyada isbitaalka ayay taallaa anna marka isbitaalka ayaan aaday isbitaalka taallaa ah markaas ayaan isbitaalka u cararayaan markaan imaado hooyadii oo kooma ku jirto waa nahay kadibna dhakhtarka ayaan u tagay waxaana weydiiyey hooyadii xaaladdeeda sida ay tahay waan u carray dhakhtarka dhakhtar hooyadii maxaa hele adiga maxaa isku tihiinna aniga wiilkeeda ayaa nahay magaciigana waa soomaan hooyadii maxaa ku dhahna iisha waa ku baraya hooyada wadna xanuun ayay qabtaa lacag ayaa loo baahnay waana la bixiyey qalinkan loogu sameeyey yaa bixiyey laakiin lacagta isbitaalka ayaa ka dhiibay iisha ka digtore oo ku baraya ahmed sarabin ogaada aniga ma aqaano laakiin dadka soo booqday ayaa magacyadu halkan ka fiirinaya u kaaday waa kan kaarkooda si fiican u fiiri lacagta hooyadii operationka oo dhan ayaga ayaa dhiibay anigana waan baxay waxaan isku dayay ayagana u tago oon soo arko walalan ku salaame maruu fismaya inta ma joogtaana wax yar u kacdaya hay soo gal marooda waa ku sugoosaay adiga waxaa tahay ina shaardaamaa run ahaanta anigoo soo socda waxaan arkay iyadoo wadada taalo kadib aniga waan soo qaaday isbitaalka ayaan geeyey dhakhaatiirtana waxay ii sheegeen qaliin inay u baahan tahay anigana markaas kadib waxaan isku dayay lacagta lagu qali lahaa inaan ka bixiyo run ahaantii waana ka dhiibay dhibaato may leedahayna haddii aan ka dhiibay way xanuunsaneed qaliinkana way u baahneed marow adig aada u mahadsan tahay maadaama adiga hooyadii aad badbaadisay waayo hooyadii adiga haddii aad badbaadin lahayn ma caafimaad lahayn mogtahayna ay dartada wax walba ku dhaceen thank you so much maadaama hooyadii aad caawisay midaan iloobi doona maaha waxaa lagu tarjumay waa ku xusanaan doona aniga mahadsanid gabar fiicanaa tahay midaas dhibaato ma lahan adiga nasiibaa leedahay run ahaanta hooyadaa waxaad hesha qof caawiyo annaga waxaana dadka masaakiinta caawiyo sanduuqa tabaruuca ayaan wax walba ku ridnaa dadka masaakiintana garab ayaan siinaa haddii dadka masaakiinta garab aad siisid adigana ma waynaysid run ahaanta qof garab ku siiyo annagana sidaas darteeda ayaan dadka garab u siinaa dhibaatana ma lahan siday ahaataba hooyadaa waxaa loo baahan inaad daryeesho aniga waan kaa tegayaa in caruurta ay sugayso ay maalin wanaagsan bye bye run ahaantii mashruucyada fisma ay qabanaysa 4 maalin ay ka soo wareegatay anigana hooyadayaan doo u raadiyey aniga hooyaday doo u raadinaya ayaa cod maqle gadaalka yeeraya kadib marka gadaal la fiiriyeyna qofkaas qof kale ma noqon hooyahay bay noqotay waryaa meeshaan maxaa ka qabanaysaana adiga soo ima dhihin aniga aroosaan aadaya maxaa ku keenay meeshaan ii sheeg bal aan runtaa waay aniga arooska waan aaday laakiin saaxiibkayga shil galay no mana saaxiibkayga aniga aroosaa shil u galay sa darteed aniga
inta la iska maadeen gacan gale hadda xaaladiisa ka waran bal hooy hadda wax laga walwala malahan dhaawac yar ayaa soo garay inaad ka wishid lahana laakiin adiga inta maxaa ka soo dantayn hooy ii sheeg wiilkayga aniga soo kuma dhihin qof gurigiisa ayaan ka shaqeeyaa oo maalintii aan caawiyaa mideeda kale fismaaya waa taqaanaa maho ayada shilay gashay moogtahay marka iyadana isbitaalka xoogaha kusoo booqay operation kiliday galowsaa mideeda kale maalin kasta adiga ay kaa weydiisaa moogtahay marka haddana waa joogtaa isbitaalka ma soo fiirinaysaana wiilkaygiio miiraaci labadan mu tegaynaa may hooy aniga maxaa iiga baahan adiga la soo fiir may wiilkaygii oo haddaba waa joogtaa maho iska soo fiirina keen hooy waa ku imaan aniga boorsadana meel soo dhiganaano okay haye way gabadhaydi ii waran hooyo see tahay hadda aniga hooyo uma fiicnahay aniga aadaan u nasiib badanahay mideeda kale adiga qalbi wanaagsanaad leedahay moogtahay waad caafimaadaysaa qalbiga ha iska dilin marka aniga markasta caafimaadkaada muhiim yahay moogtahay hooyo fadhi ha kicin tartiib sug anaa kuusoo dhawaanaya gabadheedii waxaan ku wadinaa yuu yahay qofka adiga kelida kuu bixiyana hooyo aniga waxba kama aqaan laakiinse teleefonkiisaan digtooreesada weydiiyey hoo lambarkaan digtooresa amritaa kuusoo dhiibtiyaa laakiin aniga teleefon maba haystiye inteen ka wacaana anaa haay teleefon gabadheedii waa kana hoo kan ka kawac tartiib nambarka waa kaas garaaco suman teleefonkan magaca suman ayaa ku qoran talow labadooda maxaa ka dhexeeyana halo aniga bannaankan jira waan soo socdaano ayada teleefonka hooyada ayaaba iga soo wixisa ka waran ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾ ಸಂಮೋಹಿತಳಾಗಿರುವೆ ನೀ ಈ ಜೀವವ ಸೋಕಿರುವೆ ನಿಂದೇನು ನೋಡಿ ನಾ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಸೋತಿರುವೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳು ಪೀಟಿಗೆ ಮಾರು ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ಧಾಟಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಇನ್ನು 100 ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನನಗೆ ಚಂದ ಮುದ್ದದ ಸಾಲಿದೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾ ಸಂಮೋಹಿತಳಾಗಿರುವೆ
hooyo fismaya waxay leedahay shahagadowga iska dhaaf kafeteriya meeshaas ayaad ka shaqaynaysaa anigaad i caawinaysaa ayay leedahay laakiin aniga midaas may qabanaysa ma rabi yaa badanaa wiilkayga adiga waxun may ku dhahdayna maxaa dhacay aniga waxaan u malaynaa naagtaas inay dareen kuu haysayaa mideeda kale iyada nin askariya ma sugayso ma ogdo nin allaala ninkii kasoo horbaxay ay ku qabsanaysaa shaaxlowata ha ahaadee may hooyo aniga midaas ma awoodi waayo aniga mar walba waxaan jeclahay luqadda ingiliishka in aan barto laakiin ingiliishka maxaan baranaa anaaba af soomaaligaysaan ugu tirtirooyba kafeteriyasan inglisha lagu hadla ana inaan english barto waa ku khasbanahay markaas inaan aado waa marka ingiriis hartaa ma aha inaad barato abooba taas ma waxweyn alcimraan kaa soo qoraya taleefonkaada dhacooy qabo wiilkayga wuu waashaan u malaynaa war fiiri ingiriisku hadal dhibaato ma ahan laakiinse kafeteriyadaada yuusan kaa mashquulinin shaqayso shaaxaada gado hal midaan kugula talinaa ani xillina shaqayso xillina alcimro iska soo qoro waxbaro mideeda kale fiiri aniga maxaan sameeyaa madaxna war aniga war ma rabiyaan ku dhahay wiilow nolosha jacaylka haddii aad rabtidna waa gooni jacayl adduunku ku dhisan yahaan ku dhahay adigaanan kugu dhalay waa farxad labada dhinac in laga qabto waa muhiim labada qof ay isfahmaan nolosha jacaylka lagu sheegayana waa nolol qurux badan midaan iskaabulnimada dadka ay ku wareegayaanna waxa jira maaha wiilkayga anaa hore ugu soo daale marka wax baro marna shaqayso ad wiilkayga waan isfahanay soo maahan nolosha way qurux badan tahay waa la shaqaystaa waxaa la bartaahay yaa kusoo wacay iyada waay aha hooyo mid ayaan raba inaan kuu sheego ma laga yaaba qof oo shaagadaya waddankan inuu madaxweyne ama ra-iisul wasaare ka noqdana ii sheeg bal beelaa tahay maxaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare maa noqonaysaa waddanka maxaa kaa galaya xukunkiisa war wax waalnaa tahay wax isku falniyo mideeda kale ingiriiska aniga inaad barato waan rabaa moogta wiilkaygiyo oo dadka markaa hor istaagto hello how are you I'm fine what's good nice inaad dhahdo aniga waan jecla halaas ingiriiska layga baro moogtahay yaa qadhi badanaa ogaada kan xooga ma kugu daraa bas hooyo igu filan bas war cunaa wax lagugu dheefaayo male xilligaan uu leeyahay 30 jir asagoo ingiriisaan baranaa magaaladan beenbeenaan lagu joogaa beenbeenta ma ku joogtid hooyadii waxay ii sheegtay fismaayo inay dareen ii hayso laakiin aniga midas lama saxsanayn laakiin mar walba hooyadii waxay rabtaa aniga farxaddayda anana ma rabay fismaayaha kafeterigeeda inaan ka shaqeeyo laakiin ani midas ayaan fahmi lahaa halo sumaan waa ku baryaa iga soo gaar sumaan hal mar leeyima waa ku baryaa fismaya مدن حالة إمرجنسي هي ستموتون ويجها لسنت بليس وكبري هوري سيقات قالوا بانت نفس الدغ ما قولي سوريا كبري حالة إمرجنسي هي ست بليس هذه حالتكم يا جدك ما استاجس قاري ما سوريا سوريا حقين قوي هذا وحرب الدبقة الذهبية الدبقة الذهبية مشوى اوكي ويا حقها هي تلفون كذا مي دي بكرتان انا استعماله ما حد رنا في اسمها مرتين ايشك مايا
سكرت وبردي في سمايا مروه waayahay marwa maxaa dhacay fismaayaana maxay u qaylinaysay ilaa hadda idinka ma ogaatiin ilaa iyo hadda meesha ay aade aniga waxba kama oge gaari fishaal waa kana ما iska fadhi kaamirooyinka hoos waa kuwaan kuwa kale korna waa kuwaan kuwa albaabkan kuwaas waa ismaaya 3 maars ayaa kugu dambeysay ha awadiya imaadeen markaasay ugu dambeysay invite ikati waxay dhahday qolka korgee anna waa gee waaya yaa u yimid wiil yara way imaade bostolo ahaaya oo malaya fariino wade anna waxa dhahay kor waa kori kartaa asagana wuu koros aade ha waaya kaamirooyinkiisa horowad adigana fariiso jojoj en shaashadda ii weynay joji hadda daar gadaal u soo cel gadaal ii weynayne واكنا كان كيوا او ده في سمايا او غورسنا اني لكن مجيش كده ماركن اصاي هو بوردا كدا واحد ما سمانين انا كان اسبيتالكا جيني في سمايا شلك ku dhacay wax kale oo dheeriyaad ka ogta ma jiraan may wax kale oo ka ogahay malaana laha lewe pause ka kacba en videoga ismaya markii invitada loo keenay ma haysa hay okay joji gadaal soo celi soo dhowey joji gadaal soo celi ina weynay صح جوج waxaan rabaa sawirka markii waardiya ay ag joogtay waxay raakibal ballaari macnaha soo dhowey soo dhowey bal kali tan tii dacwadda fismaayaa keenayda soo maa ila fiiri bal haatan iidan naftirkeed waa saaxiibaanay ku sheegayda mana isyaqaanaan waayahay tan yaa waa magaceed mataqaan mari waa talino maariya ah fismaayaa iyo maari hal meel may wada deganaan ما تليه في سمايا طبقة طبناء دقنتاي مارينه طبقة لوي طبناء دقنتاي
fismaayo taliya qof oo nool ma lahan keligeeda nooleed iyada maariyane afar asxaab leedahay waraa fiiri adiga kumaar waxaad u sheegtaa asxaabti fismaaya oo dhan ha ii soo aruuriyo maya taliya fismaayo markino saaxiib dhan ma lahan yaa saaxiibteeda guriga ayay isla degnaayeen maariya maxay kaa codsanayda adiga waxay dhees taleefona iga maqan taleefonkaas ma aragtay dhahda anna taleefonkaasna meel walba ugu raadinay taleefon mageel helna ku keenaa dhahan guriga iska aada dhahay ana ku keenaa wax kale ma jiro tali waa kartay haye kumaar waa u tagay lambarada dhan waa dansiyiin oo dhaweeya kuwa oo dacwada noo keenay waay lambarka abaartad min noo sheeg anaa ku tusaa soo baxay soo raa namari firi sawiradan soo asxaabteeda maaha ها ماري أصحاب تدوه ماشاني كنوا لا جرين dhegayso sawiraan kuu soo dirayaa ii dabagal sawiradaas waya taliya asxaabta soo joog soo wacaan guriga ay degayn lambarkiisa ma taqaanadee ها واكسا 1043 واي may soo tusi kartid هاي هو تصح magacaygu waa shoog waxaan rabaa dhib kale ma jiro wax yar inaan ku weydiiyo guriga 1145 saddexdii September habeen ma wacdaadii ii sheeg bal maya ani lambarkaas sheegaysa ma wicin laakiin tali lambarkaas saldhig ayaa laga soo wacay dacwo ayaa laga gudbiyay maxaa yeelay anaga waa ka sii xaween muusiga ayay nagu dheereeyeen kuwaas dad wanaagsan ma ahayn maxaa yeelay anaga waa ka hurdiyoon waan ka jiifo weyne waxay yihiin waan tusayaa waan ka sii xaweyne halo saldhig boolis soo hadal waxaan kaa soo wacayaa dabaqa dahabiga ah qaybta 145 qol meesha nala degan buuq ayay nagu wareeriyeen kaal hal mar way mooyaaqay hata xadiraan u sheeg yaaq dadka waxaa rabay sharcigana waa fajsid adiga maxaa kaa qaldanna waayahay adreeskii lambarka noo soo dir dhibaato badan ay igu haayeen taliya laakiin adiga sharciga waa fajiyay dadkaas nagaalma maru waan dabagelaynaa waayahay askar walba wuxuu leeyahay dadkaas anaa meel saaraya mana saarayaan ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನಿಂತು ಭವಿಷ್ಯ ಏನೆಂದು ನೋಡು ಕೂಡಿ ಕಳೆದು ನಿಭಾಗಿಸು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ನಿಶೋಧಿಸು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಸು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ತುಂಬಿಸು ವಿಕಾರ ಔರೌರ ಜೀವನೇ ವಂಶಮರ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
చదురంగా హోనాడు అనుదిన ఎదురిదే రణరంగా కిత్తోయాడు తోడి హల్ల పిత్తోయాడు కాలాన కిత్తోయాడు కరలక్షణమా కిత్తోయాడు కన్నా ముంచే కాలే కూడే ఆట సురువాడిడే dilkan dil la yaab la ayuu noqday dhagax walba hoos loo qaado dilkan kiiskiisa ku saabsanna qiso cusub ayuu la soo baxayaa balse su-aashiis weydiinta mudan ayaa waxa ay tahay xaqiiqada dhabtaa sidee lagu ogaan karaa halkeesa naga jirtaa kiiskanna sidee lagu xalin karaa isbatoore ashoog 10 maalin ayay ku qaadatay si uu u kala furfuro xiraalahan meesha yaala hase ahaatee maxay tahay xiraalahaas meesha yaala toona ugu mashquulay tanka xitaa isbitooraha su-aasha soo jiidatay oo abaartamiintada dahabiga ku saabsan su-aashaasi waa su-aal muhiim ah hal jawaab keliya u baahan tahay fismaaya iyo asxaabta maari wax xiriira ma lahayn maari iyo asxaabteedana waayihii dambe layskuma finin saas ay tahay saldhigay yimideen waxay ku andacoonayaan ku dacwoonayaan saaxiibtan maariyaa maqan haddana waxaa cajiiba fismaaya meydkeeda sabab ay u qaateen haddii caddayn wax kala saaraysa ee jirto dhakhtarka unbaa soo cadday kara laakiin waxaan rabaa dhakhtarka baaray in aan ogaadiyo u ahaa dhakhtarkaasi دكتور أرفين تصومتي أها أنا كان إسبتورة شوغا اللي يرادا وحانو يمال ماشا شلكي في سمايا إن إسبتور شلا يهد أرنتا إن لغا هلان مفعنو إن وحي أهتبو إسبتالكا كواد هلينا إن فيري دكتوري تليفونada afartooda waa la damiyay annagana wax information ilaa ay hadda aan ka hayna ma laha telefoonada wax soo arba kii wuxuu wacay suuji wuxuu la hadlayay muddo 5 daqiiqo ah telefoonka markii ugu dambaysa signal ahaan xagu soo qabanay ms nagaar ayay joogeen هي يا وانا صوفيري وريا أفرت صاحب بدأ يدعوي أفرت اسمع خنانية الشيء مسح تنا كادر سيني وشيء أنت لي حقيقة أنا كل شيء يدل وكبريا وكبريا
busooladii dhiib laakiin taliye waxaan ku yidhi busooladii dhiib maxaad xabadaha ugu riday taliye waxaa waaye taliye laba sax ayaa ku soo wacaya taleefankaagana waa mala heli karo maxaa kugu dhacay aniga isbatoora ayaa guriga igu imaaday arrinta fismaayo wax iga weydiiyey laakiin waxa uma sheegin teeda kale waxaa lagaa rabaa meel amni inaad tagto adiga halo adiga mii maqashaa kumaar halo kiiskaa markii aan sii gudagalnay anaga su'aalo ayaa noo soo baxay su'aalahaasna waxay yihiin soojii viki markuu garab siinayay viki yaa waay qofka u wacay qofkaas ayaa la iskaga baahan yahay soojii maxaa xabadda loogu dhuftay sidoo kale kumaar iyo viki maxaa ka dhexeeyo waa inaan ogaanaa muhiim waay sidoo kale doctor aravindara sarkaalka lagu magacaabo kumaar muxuu saameyn aad iyo aad udan ugu yeeshay sarkaal ashuugna su'aalo badan oo jawaabtooda raadinaya ayuu helay qaar ka mid ah ma laga yaabaa arrintaas kumaar in uu lug ku leeyahay ama qof kale aan dhahna arrintan kumaar ayaa lug ku leh booliska maxay u xiri laayihiin sidoo kale kumaar arrintan saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa ani maskaxdayda markaan baaritaan ku sameeyey magaca fismaaya laba gabdhood ayaa ku dhimatay meeriya asxaabteeda markay meesha muusigay ku xirayeen gabarderiskooda ayaa muusigaas dhibsatay saldhiggay wacday markaas kumaar ayaa joogay isla markaas kumaar taleefon u diray wuxuuna ku amray deriska in aynan dhibin oo muusiga iyo foodada ay ka daayaan kadib soojii kumaar raallaa buu yidhi wuxuuna ka qaatay gabadhood haweenayda lambarkeeda wuxuuna kumaar u sheegay inuu raalligaraynaa gabadha kadib caqliguu sameeyey gabar ayaga guruubkooda ayuu wuxuu u diray waardiyaha hoose sidii lambarka maariyaa ama qolka maariyaa waardiyo oogu sheego kadibna wuu u sheegay si fudud ugu sheegay gabadh intay waardiyaha ku maqneedna ayaga dhexdoodaaba iskhilaafaba okay waardiyu wax dhiba uma arkayn lambarkii oo sax uu siiyey iyo abaartaday deganeed lambarkeeda waardiyaha markuu dhiibayo lambarka iyo abaartada lambarkeeda wax qalada mau arkayn gabadhu way ka soo qoratay kadib waa soo baxday soojaa ayay u keentay fishmaayaana waxay aragtay albaabkeedoo furan albaabkan aniga waan xir markaan baxaayay laakiinse iyaa furayna yaa waaye adiga yaa tahayna ur yaa waaye
huwaal saldhigga adiga ayaa naga dacwaysa laakiinse adiga ma filin ma dhibaato inay dhiciso iga raali noqo samaacadda hoos u dhig waan kaa seexan weynay anaga ayaan dacweynaysa soo maahan waa maxay sababta ku hugtay anaga inaan dacwaysta maxaana ka faa'iidaysaa noo sheeg yaa maxaad tirahdeen booliiskaan ugu dacwaysa anaga maya waxaas ma jiraan waayahay weynoo tala anaga waa xisaabtaa aniga markayga waay waxaan kugu sameynaa waxyaabo weligaadan iloobeynin dhib malahan cashiray ku noqonaya ku dhahay aniga tartiib dulqaada yaqay anaa kuu dadejina oy ayaa kula dhaqso aho mobilka kan idibka kan alqabtada firi boolis darta hadda wax dhaqso booliska wax ما هو أم لنا كخبر soomaan asiga waa mashhuursanaa fiswaaya taleefonka siiduu taabanaya taleefonka maxaad iga qaban laadahayna haye maxaa dhacay ma laga qabanay oo ka xumahay sooma wax yar fiswaaya suman iga soo gaar haleel uu soo orday kala yaqay ha ordina istaag tartiib sidaya sidaya waxaa yimaada nin ayada fariin u wada albaabkuu soo gargaraacay wax ka fura markuu waayana dib ayuu isaga laabtay sidaya waxaad iga rabtiin waa idin baraaska ka sidaaya ma ku daynay wiclow saqajaanka ah waa ku dilaya dhammaantiina ma idin dayna waa idin dilaya booliska ayaa idinku dacweynaya ciyaal suuqin ayaa tiin qof caawinaha haweenaadsa malahan gacanteena ka baxsatin ma laga yaabo anaga ayaa gacanta ku waano naya isida haynaya booliska wixii Soomaaliya adiga booliska waxaan ku dhahay meesha adiga ku hadlaya qalino waxna booliska ma dad ku talaya waa kan aniga sidana diiday ka warramay booliska soomaan markii mootadii ay ka halawday laamiga saaga gaariga fishaal ayuu saajiyey kadib uu isu dhigay markay ka saageen wuxuu yiri saaxiibayaal hore ii sii qaada suman taleefonka inuu ka waco isku dayay laakiin batirlow ka noqday taleefonka fishaal ayuu qaatay laakiin wax ka qabta nasiib darro uu waayay laakiin midda aan fahmi weynaa waxay tahay lambarka fishaal ayaa wuxuu soo wacay lambarka fiswaaya asxaabtaas gabadha dish markii gabadha ay dhimatay arkeen waagaa ku bariyey waxayna raadiyeen xal ama qorshe ay maxa uga badbaadaan in ay dil geystaan waxay sameeyeen saldhiggay yimideen waxay baafiyeen in gabartaa saaxiibtooda ay ka maqan tahay oo wax ka dila aanan la aqoon soomaa soo soo ordaayo gurigooda maadaama taleefonka laga qaban waayo abaartaday degantaana waardiyaha ayuu weydiiyey dhinaca kale laakiin waxaa isku dagaalaya fishmaaya iyo fishaal waxaana la isku dagaalay uuranku leeyahay tiri asigana wuu inkirsanaa ninkii soojaa wuxuu isku dayay inuu waqaso abaartada dhan wuxuu ku fikiray inuu korontadeeda u damiyo soomanaasoo saaxiibtiiska gaaris leh ayuu wiishka soo saaraa dhanka kalena fishmaaya iyo fishaal ayaa isku haysta weliba iyadoo la isku haysto arrintii uurka
dhinaca kalena asxaabta soojaa waxay tirtirayeen wixii caddayn iyo raad reebayay fishaalna fismaayo ayuu dharbaaxi xoogla ku dhiftay dharbaaxyada uu ku dhifanayana soojaa korontadu waa jare miskiinka soomaa wiishka u saaraa korontadii baxday meeshuu ku xanibma fishaalna dhibaa meeshaan ku heestaya fishmaa dharbaaxyada xoogaleedu ku dhiftay ayay la suuxday asxaabta soojaana meydkii oo gabadhay dileen ayay soo qaadeen fishaalna wuxuu soo qaaday fishmaaya suraaj meydkeedii soojaa soo socda ayuu wuxuu arkay baabuurkii fishaal oo furihii gadaal ka taagan yahay kadib jaanis ayayba u noqotaba furihii ka siibtay gaarigana gadaal wuu u xiray fishaal markuu soo laabto wuxuu arkay gaarigiisa uu yaqaano oo hortiisa lagu kaxaysay oo sii socda asigana wuxuu maleeyay fisnaayaa inay soo kacday gaariga kaxaysad laakiin arrintu sidaas waa ka duwaneed maxaa yeelay soojaa iyo asxaabtiisa ayaa gaariga fishaal meyd kale ku qaaday markii korontadu dib u soo celiyeen qolada sakuuradkaana waxaa la arkay dhibaatadan meesha ka dhacda soojaa iyo asxaabtiisa gaarigiisa ay wila soo ordaayeen meel ay saajiyeen fiswaaya ayay kursiga hore fariisiyeen kadib waxay ka dhigeen sheekada arrin shila ukun iyo waxbay ku babajiyeen way gubeen kadib gaarigana waxay ka dhigeen wax buurta ka dhacay soomaan korontadu markay timid wiishka halaaleel uga soo degay fismaaya qolkeedii ayuu toos u abbaaray meelow ka dadeeyey wuu ka waayay laakiin nasiib xumo waa waayay ninkii soojaa wuu baxayey nin la yidhaha fiki ayuu tegey fikiina askarigii kumaar la dhihi jiray ayuu arrintii la kaashaday ninkan la yidhaha fiki iyo kumaar 25 kiisa oo kiiskan ka horreeyey ayay saan isula qootoqoteen xoogaa qadaadiicana waa la siiyaa arrintu markay meeshaas maraydo kumaar waa baxayay doctor arvin ayuu la hadlay wuxuu yidhi kiiskaas waxaa ka dhigaysaa negative soojaa ayaa saxaabtiisa saldhigga yimideen ayagoo qorshahoodii oo ahaa in booliska baaritaanka uu haayo raad ahaan ayagoona soo gelin kadib taleefon ayaa kumaar oo u soo diray kumaarna wuxuu u sheegay in kiiska dib loo furay weliba ayagoo iska baashaala waagaa ku bariyey ninkii soojaa ahaa kadib waa soo baxayay asxaabtiisa wuxuu u sheegay in weli qoortoodayn xur ahayn oo ay bacar ku jiraan ninkii soojaa waxaa lagu kulmay asiga iyo asxaabtiisa dhalashada neehaa wuxuushase 3 kale in uu ka dhulso soojaa 3 kale ayuu soo dilay ninkii kumaara waa soo jeestay fikii ayuu wuxuu ku amray isla soojaa asiga in uu dilo annaga waa inaan qof dilnaa yaan dilaynaa markuu aragay in gacan lagu haayo wuxuu isku dayay inuu isdhiibo kumaarna wuxuu ku fikiray fikiin afka una qaabaa dili si una raad u soo gelin doonay laakiin doqonkan kumaara maba ogeynba caddaynta dhan oo aan raadinayno in ay asiga ku soo biyo shubanayso oo caddayn saan sugu noqday asiga
markaana waxaan ka hadlaynaa dil loo geystay dad farxad rabay dadkaas farxadda rabay dhibaatada loo geystay murugada la baday waxaa loo baahan yahay dadkii dhibaatadaas u horseeday in xabsiga la geeyo weliba waajibkooda la marsiiyo cadaaladana ay dowladda marsiiso qof walba qalad garay maalin uu qaladkiisa ciqaabtiisa wuu mari doonaa waa maasantihiin waxaa lagu tarjumay astaan filmis